oo in Sharma Boy la sii daayay gurigiisana uu joogo. Boy lagu sii heekarin saldhigga Garowe muddo ka badan 48 saacadood gudahood lagu soo taago maxkamadda maanka ay kala tageen Sharma Boy. Arrintaas daawadayaal wax ka jira male oo reerkii ay u tagtay oo wiilka ka qabay bay u tagi lahayd. horta taasna taasaa idinka iri oo qabowgaasayto awalba qasab uu ahaa wax ka jirana ma jiraan. may fahantay yaa xaraan weelkeeda ayay isugu tagtaa. عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كوسو دواد channel ka Farasle Show dadku cusub daawad channel ka marka kugu horeeyay please subscribe gambarka taawasi muuqaalada xiga kuusoo gaaran daawade meelo baa joogto maxaa cusub oo inii hayaa daawade soo aragteen thumbnailka ama qoraalka arinta ku saabsan Sharma Boy iyo gabadha Maryumaanka inay kala tageen ama Maryumaanka la furo uu furay fanaanka Sharma Boy. arintaasi maxaa ka jira maxaase ka run ah inta daawada arintaas aan guda galin waxaan doonayaa daawada inaan hal qodob ka hormariyo ah iga gadan kuwa Garowe iga gadan kuwa kalisor naga badan iga mudan amaan gaar kuwa gadalo magalo geesiyaasha galmudug iga gadan. xaaladda Sharma Boy oo dhawaanaha mudadku inta badan ay siyaabo kala duwan ay wax uga qorayeen waxyaabo fara badan oo dacaayadna laga fidinayay oo in Sharma Boy la sii daayay gurigiisana uu joogo. wararka qaarna ay sheegayaan in Sharma Boy lagu hayo xabsiga ama saldhigga Garowe. arintaas daawadayaal aan si faahfaahsan ama sad u fahantiin arintaas daawadayaal aan uga hadla waxay tahay ninka lagu magacaabo Sharma Boy waxaad ogeedeen in mar la yiri waa la sii daayay baxaya saldhigga Garowe. inta badan waxay isla dhaxmareen in Sharma Boy la sii daayay balse arintaas daawadayaal run ma ahayn mana ahan mid xaqiiqo. Sharma Boy markii uu ka sii baxayay saldhigga Garowe wuxuu loo sii gudbinayay xabsiga Garowe maadaama saldhigga Boy lagu sii heekarin saldhigga Garowe muddo ka badan 48 saacadood maadaama dastuurka Puntland oo dhigayo in qofka 48 saacadood gudahood lagu soo taago maxkamadda saldhigga Garowe oo ku habooneen in qof in muddo lagu sii hayo. inta Sharma Boy uu ka sugay maxkamadana lagu sii hayo xabsiga dhexe ee magaalada Garowe maadaama labada reer ay ka soo kala jeedaan gabadha ku geeriyootay gaariga Sharma Boy uu waday iyo reerka uu ka soo jeedo Sharma Boy ee wali xaaladoodu tahay mid aad u qariban maadaama labada reer ay isku fahmi laayihiin Boy oo dib u helo xoriyadiisa maadaama reerka gabadha ka dhimatay ay ku doodayaan inaysan u baahneen wax mag ah ay doonayaan in Sharma Boy cadaaladda la hor keeno maxkamadna miso arinta Sharma Boy halka reerka uu ka soo jeedo Sharma Boy ay doonayaan in xaalo mastuur baasha lagu dhaqo magtana ay wiilka ka bixiyaan wiilkana xoriyadiisa oo dib u helo. balse arinta in Boy la sii daayay ay tahay arintaasi mid aan xaqiiqi ahayn. Sharma Boyna oo yahay qof maxkamad suga ah ee ku xiran xabsiga Garowe welina aan la sii daynin Facebookiisa iyo YouTube-ka iyo TikTok-ga intaba dad kale ay gacanta ku hayaan ay soo gelinayaan muuqaalo balse uu sahin isaga kan isticmaalaya saddexdaasi aaladood ay inii sheeka daawadayaal. arinta la sheegayay in Sharma Boy uu joogo Garowe xoriyadiisana dib u helay ay tahay arintaasi mid aan waxba ka jirin. haddii aan u soo laabto daawadayaal arinta furiinka oo in Maryumaanka ay kala tageen Sharma Boy. arintaas daawadayaal wax ka jira male iyadoo Maryumaanka dhawaanba ay gaartay magaalada Garowe Sharma Boyna ku booqatay xabsiga dhexe ee Garowe arintoodana ay tahay mid caadiya balse waxa arintaasi social media soo geliyay inta lagu magacaabo Faranka oo ah islaan aad u qariban ana qof cabtooy ah dadka ku halaaba Yurub balse jecel mar walba inay faragelin ku sameeydo reeraha qaar ee dhisan iyadoo Faranka ay ku doodaysa in Maryumaanka shalay markay guursanaysay Sharma Boy ay ku guursatay xoog oo reerkii ay u tagtay oo wiilka ka qabay bay u tagi lahayd. horta taasna taasaa idinka iri oo qabowgaasayto awalba qasab uu ahaa wax ka jirana ma jiraan. iyadana ay tahay qofka kaliya ay sheegay in Maryumaanka la furay Sharma Boyna oo furay.